السلام عليكم ولينو soo xaytay waxa la doonayaa in wadankeeni iyo khayraadkeedii la qaato maalin walba talaabo cusub ayaa socota oo laynagu xiniyeesiibayo ama laynagu bahdilayo Kenya waxay ku bixinaysaa wax 20 milyan oo dollar lagu qadaray inay kharashkan ku baxdo waayo waxa ka soo gali doona billions of dollars ayaa ka soo gali doona muddada faraha badan la hadii dhulkan iyadoo ay qaadato marka ummadda Soomaaliyeed in arrinta ka kacdo baarlamaankan maaha kii ka horeeyay wax wanaagsan uu sameeyay uu diiday wixii dawladii hore Umar Cabdirashiid ay u saxeexday dawladda Kenya laakiin waxa weyn dadkii Soomaaliyeed waxad moodaysaa inay maanta ka seexdeen ama ha joogaan Hargeysa ha joogaan ama Muqdisho ha joogaan ama Garowe ha joogaan ama Kismaayo Baydhabo ha joogaan iyo inta u dhaxaysa marka in arrintan laga kaco weeyaa oo dawladda dab lagu shido dab wanaaga lagu shido sidii waxan loo soo dhicin lahaa maalinta dhaweyd ee qaadka dib loo furay waxay ku tusisay inta dawladda Kenya hay malmali karto qolooyinka madaxda inoo sheeganaya tanna waa la malmali karaa marka hal la tooso haddii kale waxa weeyaan maanta tan baa la qaatay maalinta dambana waxa la oran doonaa Jubaland baa la rabaa oo Kenya ahaan jirtay maalinta dambana Ethiopiaanku ku dacwi jiray inay Soomaaliya oo dhan ahaan jirtay qayb ka mid ah Ethiopia xayl salaase 1956 markuu qabrida haraka hadlay arinta uu ku sheegay in Ingiriiskuna yaabeen waxaas oo dhan baa soo socda gobolaysigan la wada waxa weeyaan sidii cududdeena loo wiiqi lahaa haynaan cidnaba u noqoneen mid walba gooni loogu yeeran lahaa imikana way dhacdaa waxa qore arrintan badbaadin kara iyo guud ahaan qarannimadeena badbaadin kara waxa weeyaan in kacdoon cusub oo edeb leh oo usluub leh oo qasti leh inuu bilaabmo inuu xamar ka bilaabmo inuu Kismaayo ka bilaabmo inuu Baydhabo ka bilaabmo inuu Boosaaso ka bilaabmo iyo inuu Hargeysa ka bilaabmo mid walba oo dawlad sheeganaya goboleed sidoo islaha ka kale walaalka ay uga baxso oo wax uga dhac ayaa xoolaheennii oo dhan lagu wareegaya marka waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed arrintan ka toosto haday arrintaasi maanta laga gilgilan waayo Soomaaliyeed way khaatumaysatay xijaabka u diyaar garooba in la aakhira la tago weeye ilaahay wadan wanaagsan baan ina siiyay inakoo xora oo walaala ilaahay dib ha isugu soo kaan celiyo dawladana yaan la siin fursad wax qalad ah ay ku samayso inta yar waqtiga uga hadhay waana salaamantii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh